waxaan rabaa qof kastoo meeshaan fadhiyo oo deegaanada degmadan hoostaga ka yimid sida ceel jaalle shalambuud buufo bacaad ismaan khoonle degmadan marko waxaan rabnaa walaalkeen inaan cafino qof kasta oo meeshaan fadhiyo waxaan ka dalbaynaa inuu walaalkeena cafis u fidiyo waxaa laga yaabaa in dad meeshaan fadhiya hadda ay macnaha wax gaar ay ka dhaxeeyeen wax isleeyna ahaadeen ama wax lagu leeyahay ahaad ama wax qof ku leeyahay ahaadaan ehelkiisa joogo Cabdullaahi Axmed Waafo ilmihiisa joogaan mas'uuliyadda magacaawda joogaan qof walba wax heegan u yahay hadii Ilaahay karaal noqdo wixii Cabdullaahi xaqiisa jiro gudoomiyaha degmada inaan si wada jiro u wajahno waxaan rabaa maanta oo taariikhda soddonta bishii 8 2022 waxaan u maleynaa maalintan ka horeysa inta soo istaagay aan hadal hortiin ka jeediyay ma jirto maanta marka taas waxay daliil u tahay Soomaalidu waxay dhahdaa meeshii loo yariyaa loo weynaada marka wax kale oo leenahay ma jiraan Ilaahay maanta anasna joojiyay adawga Cabdullaahi Axmed Waafo go'aansada inuu dilo ugu qofka tacsiidiisa ka soo qayb galna ma dhaafay qof Allah hadii ay naagta ama dumarta ama hooyata ama caruuriya ama odayahay qofkii tacsiidiisa ka soo qayb galna ma dhaafay sababtoo asagoo dilay maxuu dilay waxaas u dilay inuu gobolkan qabsado waxa maqli jirnay maska madaxa laga dilaa haddaad ku qanacsan tahay oo ku faraxsan tahay hadii aad ka xunta maska madaxa laga dilay wixii ka hooseeyay maxoog iyo dibka hiray maxoog dibkina waa loo qasbiyaa in iyagan la dhameystiro meeshiiska nuxsa laga dilaa marka waxa la dilay waxay ahayd maskiya madaxa laga dilay ma fariiseena marka maska waxa maqli jiray hadii la dilo oo xogaas nuxsay caradu cunaa hadan waa noolaha hadda carada hataa cunno si aan noolaano waxaan rabaa shabaabka dilay Cabdullaahi Axmed Waafo qasaarada ugu badneed shalay taariikhda 29 bishii 7 2022 oo shalay ahayd qasaaraha ugu badnaa ayaa gaari madaxii korma u qaadeen ilaa iyo shalay khasaaraas iska gaaro shabaab